waxaan wanaagsan dawadayaal warbaahinta Soomaaliyeed production kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aanu caawa barnaamijkeena ku soo qaadi doono waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay amniga madaxweynaha Xasan Sheekh oo la wareegay isbedel weyn oo lagu sameeyay kooxda amniga ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib weeraro isku day dil oo madaxweynuhu dhowr jeer uu ka badbaaday qodobada kale waxa kamid noqon doona madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed oo qaab la yaab leh kaga hadlay dalabkii beesha caalamka ay hor dhigtay filla Soomaaliya isla markaasina kaga dalbatay in degdeg loo bilaabo gogosha u dhigay madaxweynaha Xasan Sheekh hadii kalena beesha caalamku ay joojin doonto taageerida ay siisa Soomaaliya haddaba muxuu Shariif uu ka yiri arintaasi madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed oo culayska ku sii badiyay filla Soomaaliya waan idin soo gudbin doonaa سلمي wararkeena waxa qayb ka noqon doono faafaynta dagaal qaraar oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan ee Maleeshiyada shabaab oo 10 aan hore loo arag mar kale lagu dhigay gobolka Hiiraan ee Soomaaliya warar ayaan idin kaga heynaa qodobadaas wixii nagu soo koraya daawo doontaan markale waxaan wanaagsan ayaan idin leenahay waa 8 bisha Abriil 2025 wararkeena ayaan guud geli doonaa ku bilaawno wararkeena isla markaasina ugu horeysiino wararkii ugu dambeeyay Maslax Maxamuud Maxamed ninka ugu kalsooni badan yahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si rasmi ah ugu wareegay amniga madaxweynaha Soomaaliya taliyaha cusub ee ciidanka guutada 77 ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya gaashaanka dhexe Maslax Maxamuud Maxamed ayaa maanta si rasmi ah ugu wareegay xilka taliska guutada 77 ee madaxtooyada Soomaaliya kadib munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho gaashaanka dhexe Maslax ayaa xilkan waxa uu kala wareegay taliyihii hore ee ilaalada xarunta madaxtooyada qaranka General Xasan Aadan Dhicis waxaana munaasabadaasi goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan hoggaanka filla Soomaaliya oo labada taliye xilalka u kala wareejiyay taliyaha cusub oo noqon doono taliyaha ilaalada madaxtooyada ayaa waxa uu khudbad ka jeediyay goobta waxaana uu balan qaaday in shaqada halkeeda uu ka sii wadi doono isagoo ciidamada madaxtooyada kula dardaarmay inay laba jibaaraan dadaalkooda maadaama ay saaran tahay mas'uuliyad culus oo aad weyn isbedelkan ayaa yimid kadib markii dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu bedelay taliyihii guutada ilaalada madaxtooyada qaranka isagoo xilalkaasina u magacaabay gaashaanka dhexe Maslax Maxamed Maxamuud oo ah sargaal si weyn ugu kalsoon yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina kamid ahaa xubnihii markaasi amniga ama kooxdii amniga ee madaxweynaha Jamhuuriyadda xilligii uu ahaa mucaaradka ninkan oo si weyn ay isugu dhaw yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana bedelaya taliyihii hore ee guutada madaxtooyada waxaana loo arkaa ninkan inuu yahay sidoo kale nin madaxweynuhu uu aad ugu kalsoon yahay arinta waxay timaaday kadib markii madaxweynuhu dhowr jeer uu ka badbaaday weeraro isku daydil sidoo kale Maslax ayaa lagu xasuustaa doorkii uu ku lahaa xoreynta deegaanada ay beeshiisu degto ee Ceeldheer iyo Masagawa halkaasi oo beeshu uu ka abaabulay si markaasi ay isaga difaacdo cadawga kooxaha argagixisada ninkan oo ka soo jeedo heebta madaxweynaha Xasan Sheekh gaar ahaan beesha Wacisle ayaa ku guuleystay in uu kasbado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana uu la shaqeynayay isaga oo mucaarad ah iyo isaga oo muxaafid ah talabadan waxa la aaminsan yahay inay ka dhalatay weerarkii qarax loo adeegsaday ee lagu qaaday kolonyo madaxweynuhu la socday maalin uu ku sii jeeday furimaha dagaalka Hirshabeelle kaasi oo ka dhacay agagaarka isgoyska Xilgaabta ee magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa sidoo kale dhawaan waxa uu bedelay taliyihii ciidamada badda iyo sidoo kale ilaalada xeebaha Soomaaliya waxaana xilkaasi laga qaaday sargaal u dhashay beesha Xawaadle oo uu taliyaha xoogga uu reesteeyay laguna eedeeyay musuqmaasuq waxa kale oo jirto in wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo laga bedelay wasaaradda gaashaandhigga oo hadda la geeyay Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo isna ahaa wasiirkii ganacsiga munaasabad weyn oo Muqdisho ka dhacday xilka kula wareegay isku soo wada duub taliyaha cusub ilaalada guutada madaxtooyada qaranka ayaana waxa la wareegay Maslax oo ah ninkaasi saaxiibada dhow ay yihiin madaxweynaha Xasan Sheekh sidoo kale tan isagoo mucaarad ah la soo shaqeeyay isaga oo madaxweynahana kamid ahaa ama ahaa taliyaha ciidanka gaarka ah ee ilaalada madaxweynaha haddana guutada madaxtooyada ee 77 ayaa loo wareejiyay haddaba isbedelka lagu sameeyay amniga madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxtooyada qaranka kadib weerar dhowr ah oo madaxtooyada lala beegsaday aragtidaas hoos ayaad noogu reebtaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed wuxuu culayska uu ku sii kordhiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo si la yaab leh kaga jawaabay dalab ee beesha caalamka soo saartay xisbiga himilo qaran uu hogaamiyay madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu kaga jawaabay baaqi beesha caalamka taasi oo isniintii si weyn u soo dhaweysay gogasha qaran ee lagu baaqay isla markaasina u dhaxayso siyaasiyiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha bulshada saaxiibada caalamka ayaa muujiyay doorka ka duwan
kii hore oo ay ugu lahaayeen arrimaha gudaha Soomaaliya gaar ahaan adeegsiga erayo ka duwan kuwii hore oo ahaa talooyin iyo waliba soo jeedino waxaana ay hadda ay si isku mid ah u baaq ugu direen dowladda federaalka dowlad goboleedyada siyaasiyiinta iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ku boorinaynaa dowladda madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo saamilada siyaasadeed iyo kuwa bulshada inay si dhaqso leh ay u kulmaan si baa yiri loo xaqiijiyo falcelin midaysan oo wax ku ool ah isla markaasina ku aadan dagaalka socdo ee al-shabaab falcelintan waa arin mudnaan degdeg u leh amniga qaranka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka beesha caalamka xisbiga ayaa intaasi kadib waxa uu soo saaray bayaan af Ingiriis ku qornaa kaasi oo lagu bogaadinayo talaabada saaxiibada caalamiga ah xisbigu waxa uu sheegay waa xisbiga madaxweyne Shariif inuu soo dhaweynayo dadaalada madaxweynaha si gogasha uu u dhigay madaxweyne Xasan Sheikh ay u noqoto mid waxtar u leh natiijo laga gaaro arrimahaasi haddaba xisbiga himilo qaran waxa uu si diiran u soo dhaweynayaa baa yiri bayaanka wadajirka ah oo ay soo saareen saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya kaasi oo taageerayo hindisaha dowladda federaalka Soomaaliya ku aadan wadahadal qaran oo loo dhan yahay madaxweyne Shariif ayaa noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee ka soo jawaabay baaqa beesha caalamka isla markaasina muujiyay in doorka mucaaradka ay diyaar yihiin madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay inuu garwaaqsaday muhiimadda gogashan waqtiga la dhigay iyada oo dalka uu ku jiro xaalad xasaasi ah oo u soo dheer tahay dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha argagixisada ee shabaab sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa u mahad celiyay saaxiibada caalamiga ah waxa dhinaca kale uu ku adkeeyay filla Soomaaliya iyaduna in ay doorka shirka dadijiso si buu yiri xal waara looga gaaro arrimaha ismarwaaga taagan baaqa iyo ka jawaabida madaxweyne Shariif warka ka soo baxay wakiilada beesha caalamka ayaa culayska ku sii kordhin kara filla Soomaaliya waxaana loo arkaa in hadda filadu ay wajahayso cadaadis xoog leh iyadoo ay isugu darsameen mucaaradka oo soo dhaweeyay baaqi beesha caalamka muujiyeen inay diyaar yihiin iyo sidoo kale beesha caalamka oo dowladda cadaadis ku saarayso in degdeg loo qabto shirka gogasha wada tashiga oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu dhigay haddaba isku soo wada duubay filla Soomaaliya ayaa hadda indhaha lagu hayaa iyadoo la eegayo jadwaleynta shirkaas in ay ku dhawaaqdo haddaba aragtida ku aadan hoos noogu dhab dhinaca kale faahfaahin dheeri ayaa ka soo baxay dagaal faraha lagu gubto oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan ee Soomaaliya iyadoo halkaasi la soo warinayay maleeshiyada shabaab 10 milaabana lagu dhigay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaalkii ugu qaraaraa oo mar kale saakay dib kaga qarxay deegaanka Aboorey ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo waliba maleeshiyadka kooxda shabaab ayaa la soo warinayaa in halkaasi uu ka dhacay kadib markii ciidamada iskaashanaya ay weerar culus ay ku qaadeen xubno ka tirsan kooxda shabaab oo si dhuumaaleysi ah ku soo galay deegaanka Aboorey ciidamada iskaashanaya ayaa ku guuleystay in deegaanku ay ka saaraan maleeshiyadka sida ay xaqiijiyeen ama sida ay xaqiijiyeen raadii dowladda federaalka Soomaaliya oo war rasmi ah ka soo saartay dagaalkaasi dowladdu waxay sheegtay in ciidamada haatan ay sii wadaan baacsiga firxadka maleeshiyada shabaab ee ku jira duleedka deegaankaasi iyadoo dhanka kale tan xustay in howlgalo ballaaran oo wali socdo in la doonayo in lagu soo afjaro maleeshiyadkaasi qoraalka dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa lagu sheegay in weerar qorsheysan ay ka socdaan nawaaxiga degmada Runulgood iyo waliba deegaanka Guulan la yiraahdo iyo Ceel Cali Axmed oo gobolka Shabeellada Dhexe ah halkaasi oo dhinac duqeymo culus iyo howlgallo markaasi ay fulinayaan ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliya ay halkaasi ka wadaan sidoo kale waxa la soo sheegayaa in dagaalo culus ay ka socdaan aaga u dhaxeeya degmooyinka Buurburday iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dowladda dhowr aag ayayna ka wadaa dagaalkaasi waxa ay dowladdu ku faantay in howlgalladaasi jab xooggan lagu gaarsiiyay maleeshiyada al-shabaab gudaha wararkeena caawa